bismillahi rahmaani rahiim. Markaan waxaan rabaa inaan ku tuso sida loo analyze gareeyo datadaada hal mar loo wada analyze gareeyo su-aashii iyo tablekii oo aad rabto markaa tableka naqshada uu kasoo bixi karo inaad sii ogaato. Sida haddaan sheegayna waxaan ku dhufanaynaa analyze, kadibna waxaa lagu sii dhufanayaa descriptive, waxaa la dooranaa frequency. data waxaan wada analyze gareyn dhammaan su-aalaheena. hadda waxaan rabnaa inaan one variable inaan analyze gareyno. halkaa variable waxaa kasoo qaaday inuu yahay educationka. waxaan rabnaa inaan u sameyno table anaga aan rabno. kasoo qaad waxaan u dooranaa via chart, kadib waxaan rabay percentage kusoo muuji si automatic ah. waxaan leenahay save gray, kadibna waxaan leenahay okay. halkaas su-aal keligeed ayuu noo dhaalinaya. wuxuuna geynaa marka output view-gi. output view-ga wuxuu sida adiga waxaa loogu talagalay inuu soo bandhigo sidaan hore soo sheegnay. waa kan tablekii frequency table. isla marka waxaa ku xiga graafkiisii. graafka haddii marka aad ku qanci weyday inuu saan u ekaado inaad ku qurxiso, waxaa ku siin kartaa click. markaa click ka siiso, isla marka waxaa aadi kartaa graphics-ka colorka meelaha saaran. haddii aad taa rabina waxaan samayn karnaa inaan click kusii siino 2 jeer, si automatic waxaa soo baxaya box yar oo ay ku qoran tahay charter editor oo loogu talagalay markaa in charterkii meesha noo yaalay aan ku edit gareyno, dul saarno. wuxuu ka kooban yahay markaa hadhow waa iska xiri doonaa. wuxuu ka kooban yahay marka contentiyo oo buuxa oo muuqaalkiisa u dhammaystiran yahay. waxaan rabaa midabka inta uu siiyo inaan bedelo. clickta koowaad waxay wada fuuleysaa dhammaan boxka. clickta labaad markaa ku dhufto waxay fuuleysaa isaga qaas u qaadanaysaa. markaan click siiyo markaa highlight gooni ayaa fuuli doona. kulli hadda wada fuulay. waxaan sii rabaa marka aniga keligiis inaan kusii dhufto, kadibna colorka wuu ka bedelmayaa. hadda waxaad dareemaysaa marka colorka isi keligiis inuu saaran yahay oo aan rabo keligiis inaan bedelo. waxaan aadayaa markaa color fill-ka. waxaan dooranaa colorkii aan rabo inaan saaro. waxaa jira wax yar oo busy ah. kalarada marka midka aan jeclaystay inaan saaro ayaan click ku siinaa, sida hadda guduudka haddaan doorto oo kale. isla marka wuxuu qaadanaa markaa midabka guduudka ah. kaas bis ma ahan, midab kasta oo aan rabo inaan bedelo kalarkiisa, clickta koowaad kulli wada fuulayaan. clickta labaadna midka aan rabo inaan bedelo ayuu sii fuuleysaa. haddaan rabo xataa inaan color ka bedelo frameka guud oo guud ahaanta ah, naftigeeda waa ka bedeli karaa. hadda waa kaa frameka guud wuxuu ila aaday property, laakiin isla frameka guud color gooni ah waa siin karaa. marka waan soo furaynaa naftigiisa. colorkii aan la jeclaysanay inaan saaro ayaan dooranaynaa. hadda waxaan u dooray mar kale colorka guud jaalle ama huruud qof soo yaqaano. intaas waxaan kugu tusaayay sidee colorka loo bedeli karaa tablekaas. markaan ka dhamaysano oo close aan idhaahno marka wuxuu kusoo wareegayaa colorkii oo dhammaystiran barnaamijkeennii. intaas waxay ahayd markaa inaan ku fahansiiyo sidee tableka loo qurxiyo. waa la qurxin karaa graph bis ma aha, tableka waa la qurxin karaa naftigiisa. isla sidii kale la samaynayaa. waxaa la sameynaya 2 click. waxaa kusoo baxay editorkiisii. waxaa la saaraa colorkii. isla processkii haddaad amraynay ayaa la marsiinayaa. wuxuu soo saaray markaa font toolbar.
oo xataa waxaad bedeli kartaa qoraalka ku qoran fontigooda noocii aad jeceshahay ayaad ka dhigan kartaa. fartii aad is tiraahdo fartaasaa yaro qurxoon oo faraha aad jeceshahay ka mid ah formatka inay u qormaan ayaad dooran kartaa. farta aadka loo jecel yahayna waa Times New Roman ee inta badan jaamacadahan ardada ay ka rabaan. kadib nambarkii aad rabto aad geysan kartaa 12 iyo 14 nambar buuxa ayuu noqonayaa. kalarkii markaa hadda booldi aa saaran levelkeeda Italia aad dooran kartaa. color textigaad dooran kartaa. hadda kalarka saaran hadduu yahay waad dooran kartaa, waa highlight garan kartaa. naqshadii aad ka rabto ayaad ku samaysan kartaa. sidaas ku qaadanaa isna soo dhammaystiran ayuu halkaas yaalaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.